kulanti wacan wanaagsan ka soo qaybgalayaasha dhammaan odayaasha dhalinyarta dumar iyo haween rag iyo dumar isku jirta xildhibaanada golaha deegaanka nagu matala been ahaan aad iyo aad aan mahad celinayaa insha Allah soo ajiibitaanka soo ajiibteen ka soo qaybgalka xafladan aad u qurux badan sida meesha ka muuqata xafladda waa xafladii dhalinyarada ururka dhalinyarada RN ee gobolka Mudug sida xafladda ka deehanaysaan waxa weeyaan waxa ka soo qaybgalay marti sharaf aad u qurux badan oo beesha u dhan tahay intii soo gaari weysay cudur daartayna waxa weeyaan waa raaligelinayna insha Allah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أورى إله سبحانه وتعالى هل كان سوكا كيني أيان مهد علينيا مهد علين كدب وحن سلام هي ضمان كسوق بقلياشة حفلة كسوق بقلي قدومياشة يحل باندا بليرادا بعض صحافة قبلها يليش ضمان أنت مقعد شيء أنت شيء مقعد أنت شيء ضمان واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad iyo aad baan ku mahad celinaya mar labaad iyo mar saddexaad runtii waxa way farxad weyn ayay noo tahay arintaani farxad weyn ayay noo tahay dhalinyaradu inay isxilqaanto dareento awoodda ay leedahay hadda kor baa waxa la yiri waa maqan horo dhowr sano ka soo ratay 20 sano soo ratay malaynaya dhowr ninoo qaar xataa reer macala hayeen baa waxa cunay weer hooygaas wuxuu ku cunaa oodaas awrla markaas waxa nin la dhagay foolbra wuxuu yiri baleeyo ku qaad awoodsa alla tusina wixii marwaab ku xoog yariye mar raay dadka inuu cuno marwaab wixii dadka wax cunu jiray intaas qarni sawirka kama xoog yara awoodsa alla tusimi hada la neero waxa la mar hore ka ahayd isxilqaankii gudoomiyihii la soo dhaafay intii ka horeysay bay ka ahayd sababtoo tahay dhalinyaradu waxa la yiri bulshada waa 70% iyo 70% marka 70% iyo 70% waxa moodaa awood forfeed inay tahay intaas sidaas markay awood u tahay ayaga ayaa la rabay inay hogaamiyaan dadka hoggaanka noqdaan inkastoo waxa weeye wax dhaqan soo jirana uu jiro dadku ay mudug hadii la joogo ama Soomaalidu ay ixtiraamaan dadka odayaalka ama da'da waaweyn laakiin majority dhalinyarada ayaa wadanka ka ah ayada ayaa la rabaa inay dadka hogaamiyaan waa salaamaya dhalinyarada gabdhaha odayaasha iyo ganacsatada bahda saxaafadda musharaxa tasriiga gudoomiyaha cusubtaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. islaan kadib waxaan u hambalyeelayaa musharaxii tanaasulay ee noo fududeeyay waqtiga in badan baan fadhin lahayn waxaan rabaa inaan u hambaliyo soo dhaweeyo gudoomiyaha cusub ee cabdiqani sidoo kale aad baa isaga soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa wax badan inuu qaban doono haddii ilaahay idmo ururka hore soo shaqeeya beesha reer Nacalo hadda waqtigooda dhamaadana waa u mahad celinaynaa inta ay qabteen bacda salaam alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahadna maanta iskale runtii waxaan isleeyahay caaway xaflad aad u qiimo badan oo xasuus badan lagu reebaysa baa halkan ka dhacday labada musharax oo tartamaysay qof waliba wuxuu lahaa hamigii uu ku talagalay markii hore inuu ku tartamo laakiin tanzulaadu waa qayb ka mida tartanka waa qayb ka mida guusha qofka uu xaqiijiyo marka gudoomiyaha cusubna waxaa leenahay gudoomiye soo dhawow hawl badan baa ku taala dardaaran iyo hadal intii laga yahaa waa la yiri dhammaan dhalinyarada ganacsatada xildhibaanada kulli dhammaan walaalayaal salaamta islaamka ku salaamo aniga caawa farxad bay ii tahay weli ma arkin reer caalam meel isku dooranayaan aad baan caawa farxad baan la soo istaaga caawa halkaan farxadda darteedna la hadli waayaan ka baqayaa marka walaalayaal ما شاء الله عبد الغني هو همبلينا همبليو فرحت بيتها ولي أنا قفك أركي ما يرن وعالي لبق ويلي قبل بالله كده وحس دورنا هيا ويكو وحن ربا الله صدح أفر شن مرة بين أركان ربا ما شاء الله
sida maxaan ku rahdaa xildhibaanada odayaasha dhalinyarada dumar iyo maxaan ku rahdaa ragba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ugu horeyn ilaahay baa mahad iskale halkan isugu keenay qadarayna xafladeena quruxda badan leh inay caawa noo qabsoonto. marka waxaan leeyahay ما شاء الله. بركاته سلامي دمان تكسو قديراتي حفدينا RN دمان وكفر سنة مهدلين يا هذه السكوكين كنا دمانتي هذا الفرح سنة بحدي لو سكوب كرو هذه يقول رسالة إنه بدوجا وانا كي هم مهدلين يا إنه برينا يا كتومي هنا كتومي عنا يا مروة عني لا يكون كرب استراحة حلكة إن وحن كلها كان كسيشي جاينت أو بدنا عن سويشي hormar wacan dunida oo dhan adduunkeena qudbadaya barwaaqo bitaala oo wanaagsan xoolaha iska buuxa beesinka durduraya lacagta iska daadsan bari baana ka duulin diyaarad baana ka raacan dad shisheeyaan u socdaan denyar baan ka rabaa doqonni maceed dul weeye waxaasi annagoo isku duuban tashiga aan wadaagno danta aan ku dadaalno dacwo miyaa ka qabtiin meetingkan waa ku mahadsantihiin sida aad runtii uga soo qayb gasheen. waxaan idinkaga mahadcelinayaa sharaf iyo karaame noo tahay marka inaad soo ajiibtaan oo halkan aad nagala soo qayb gashaan. salaanka bacdi ma rabo wax badan inaan meeshaan waqtiga gaaban awgeed waxaan rabaa meeshaan awga joogo hambaliyo waxaan hambaliyo iyo bogaadin iyo soo dhaweyn aad iyo aad u qiimo leh kusoo dhaweynayaa walaalkii gudoomiyaha cabdiqani khiyare. بعد السلام waxaan rabaa marka inaan Allah subhanahu wa ta'ala na umay inaan mahad celino iskuhay keenay oo maanta ogolaaday inaan si sharaf qurux badan aan inta ku imaano. Allah subhanahu wa ta'ala ayaa mahad celinaya. marka xigta waxaan mahad celinayaa guddiga doorashada qabanqaabiye doorashada aad u qurux badan iskugu keenay ilgeelgaradka ama aqoonyahanada qaybaha kala duwan ee beesha reer macalay ka kooban tahay. waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin. marka waxaan u celinayaa gudoomiyaha dhalinyarada areen cabdiqani xidere sida laga soo dhawaajiyey dhibaatooyinka iyo baahiyaha badan ee deegaanka jira waxaan u gaari karaa waxaas annagoo ku garab taaganahay marka hore labaad hawshaas waxaan u gaari karaa oo qodobka dardaaran siinaya gudoomiyaha in baahiyaha shaqada la qabanayo ay noqdaan wax xabta oo la yaqaano. gudoomiyaha dhalinyarada guddiga doorashooyinka xildhibaanada aqoonyahanada bahda saxaafadda haweenka culimudiinka waxaan ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. salaan kadib waxaan u hambaleynayaa gudoomiyaha oo doortay sida aqlimadii codka lagu shubay master cabdiqani xidere. waxaan noo soo guddoomay doorashadii oo arkaysay sida quruxda badan u dhacday. waxaan salaamayaa dhammaan dhalinyarada reer Nibcaale meel walba ay joogaan inta kulka joogta inta maqan waxaan leeyahay horumar wacan. waana idinka aqbalay hawsha caaway ama guddoomiyenimada ay doorateen. idinkuna waxaan rabaa inaad igula shaqaysaan inaad igu garbatalisaan in waxa weeye aan si dhow iyo si fog baan u wada shaqayno. aniguna waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiis wixii doorkayga inaan qaato. waana mahadsantihiin qayb walba. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد marka hore dhammaan waxaa salaama marti sharafta odayaal dhaqameedka guddoomiyaasha guddoomiye doonayaasha iyo guddoomiyaha hadda joogo iyo dhammaan dhalinyarada heer walba isugu jira iyo xildhibaankii saacid nabadonkeena dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaa rabaa halkan inaan horta marka hore ugu hambaliyeeyo walaalkayga cabdiqani xafyare. runtii cabdiqani xafyare intii aniga magaalada joogay in aad iyo aad u qiimo badan
oo garab iyo gaashaan bugal uu ahaa sidaa ku aqaanay insha allahu tacaala waa ka rajeyn doonaa wixii lagu yaqaanay oo intaasoo dhalinyaro maanta looga soo dooray inuu ka soo baxo runtii xafladda meesha ka dhacday waa mid aad iyo aad u qurux badan waxay muujinaysaa in dhalinyaradii ay isku fiyoob yihiin in isqabqabsi iyo buuq iyo qarqac waxaas dhalinyarada ka dhex jirin waxaa ficnaan lahayd maanta maayarkii iyo gudoomiyaasha dhalinyaradaha beelaha kale iyo dhammaan inay joogaan inala arkaan wanaag iyo quruxda macnaha dhalinyarada reer nimcaal u diyaarsan yihiin aad iyo aad taas ugu faraxsanahay runtii cabdiqani afeere waa gudoomiyaha dhalinyarada reer nimcaale ee gobolka mudug